maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bishii toddobaad waxaa booqasho noogu yimid wafdi uu hogaaminayo SRSG-ga Ambassador James Swan iyo wafdi ballaaran oo la socda oo UN-ka ah oo hay'ado kala duwan ah. runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka jiro ay ugu horeeyaan arrimaha samafalka, abaaraha iyo barakaca iyo sidaas oo kale in gurmad degdeg ah loo suubiyo dadka soo barakacay iyo abaaraha wixii laga qaban karo laga qabto. waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha security-ga, amniga oo soo kordhay labadan beri, culeysyada iyo dagaalada ka soo cusbaanaaday deegaanada koonfur galbeed sidii goonida ah xuduudka borderka xuduudka Itoobiya iyo dowlad deegaanka iyo koonfur galbeed, dhibaatooyinka ay ka geysteen shabaabka iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan iyo sidii looga hortagi lahaa loogana wada shaqayn lahaa dhibaatooyinka argagixisada. sidaas oo kale waxaan ka wada hadalnay maamul daadejinta iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyadii bulshada iyo maamulka, dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka, sidoo kale degmooyinkii golaha deegaanka oo waqtigooda uu dhammaaday in dib loo dhiso, inta kale oo aan la dhisinna loo dhiso golihii deegaanka lana suubiyo sidii loo daadejin lahaa maamulka nidaamka federaalka ah ayaan ka wada hadalnay. sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay horumarinta dowladnimada iyo wada shaqaynta guud dowladda. runtii arrin guul ahayna ku dhammaatay. waxaan uga mahad celinayaa Ambassador Swan sida fahanka fiican iyo wada shaqaynta fiican oo uu noogala shaqeeyay arrimaha abaaraha iyo siyaasaddaba. aad iyo aad u mahadsan yahay.